asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu saaxiibayaal kusoo dhowaada janaalka skillers academy saaxiibayaal waxaa go'aansanay inaan bilowno course html ah weliba html5 marka saaxiibayaal dhammaan waxaan micnaha aan coursekan ugu talagalnay dhalinyarada soomaaliyeed sida dhalinyarada jaamacadaha dhigto oo programming ka barta ama web developmentiga sidoo kale dhalinyarada kale oo rabo ayagana dhalinyarada kaleeto facultiyada kaleeto barto balse jecel inay bartaan programmingka saaxiibayaal coursekan html ka bilownay oo tutorials ah oo ka socon doona janalkan keliya waxa keliya laga raba waxay tahay in micnaha janalka haddii uusan subscribe ku ahayn aad subscribe dhahdaa haddii aadan hore laag u saari jirin hadda laag saartaa coursekan course muhiim ah waa oo dhinacyo badan taabanayo insha allah coursekan intaan ku guda jirnona dhammaan tobigada aan uga hadli doono courseska oo tutorialska waa kuwana html basic tags styles and semantics lists images audio and videos html forms and inputs html frames html tables html programming html formatting iyo anagoo kusoo gonaanudi doono coursekeena project saaxiibayaal koorsadan koorso muhiim waaye oo aan soo diyaarinay oo aan waqti ku bixinay keliya waxaan kaa codsanaynaa in janaalka aad subscribe saarta oo aad share garaysaa oo aad saaxiibadaada la wadaagtaa jaamacadaha isla dhigatiin ama saaxiibaha aad tihiin ee jecel programmingka waxaa idinka codsanaa in courseska aad micnaha share garaysaan oo aad la wadaagtaan gruubyada saaxiibada dadka aad gruubyada ku tihiin insha allah coursekeena ayaan bilaaban doonaa tutorials noo socon doono noqon doona insha allah html saaxiibayaal waxay soo martay history ay soo martay ama taariikh waxaa laga yaabaa html markay bilaabanaysay inaadan dhalinin html 1989kii ayaa ninkan la dhahaya Tim Berners-Lee bilaabay 1991dii ayay soo shaac baxday 93diina html plus soo baxday 95tiina waxaa soo baxday html 2.0 version ayaa soo baxay sidoo kale html 3.2 ayaa soo baxay 97kiina waxaa soo baxay versionka weyn ee html 4.01 html5 oo ah versionkii ugu dambeeyey ee html soo baxa ayaa wuxuu soo baxay 2014 marka html 5.1 wuxuu soo baxay 2016 waxaa soo baxay html 5.2 saaxiibayaal versionadan faraha badan ee soo baxay maxay html micnaha kusoo kordhiyeen waxay kusoo kordhiyeen fiijaro badan oo uusan lahayn versionadii hore tusaaloo kaleeta html version 4 versiono badan ama features badan uusan lahayn waxay leedahay html version 5 marka features badan ayaa kusoo kordhayo oo uusan lahayn versionkii hore inaa fahanteena filaa saaxiibayaal oo intaas idinku filan tahay html iyo html5 ayaa kala saarina waxa u kala saarina maxay kala yihiin html iyo html5 html waa hypertext markup language waaye waxaa lagu dhisaa ama lagu sameeyaa web pageska websiteka lagu sameeyaa sidoo kaleeta waa structureka ama foundationka ama asaaska web pagekeena waa websiteka sidoo kale waxay leedahay html elementsyo badan haddii ay idin soo koobo html waa structureka websitekeena waaye structureka ama foundationka ama asaaska websitekeena uu ku taagan yahay waaye guri tusaaloo kale guri marka la dhisaa base ma laho ama asaas gurigaas uu ku taagan yahay haddii baseka ama asaaska lasoo dhisin gurigan uusan taagnaan lahayn sidaasoo kale waaye websiteka waxaa asaas u ah html-ka html-ka waa luuqad structure ah waaye saaxiibayaal marka inaa fahanteena filaa html5 waa maxay waa latest version of hypertext markup language waaye micnaha versionkii ugu dambeeyo lastiga ahay ee soo baxay html waaye coursekan html-ka inta aan ku guda jirno maxaa noogala baahan yahay si courseska aan u bilaabno waxaa noogala baahan yahay
in computerkeena inaan computer haysan number one, computerkeena uu ku jiro browser. So browseradan mid kamid ah inuu ku jiro computerkaaga sida Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge. So anaga course intoo socda waxaa isticmaali doonaa Google Chrome oo shirkadda Google ay leedahay. Sidoo kale waxaa u baahannahay meel aan koodkeena micnaha ku qorno ama aan kusoo bandhigno sida text editor. So anaga text editor-ka maanta ugu caansan dunida isticmaali doonaa oo ah Visual Studio Code oo dadka coding-ka isticmaalaan. So Sublime Text isticmaali kartaa asna dad fara badan ay isticmaalaan. Notepad++ isticmaali kartaa, Notepad isticmaali kartaa. Insha Allah inta laakiin anaga course-kan HTML-ka aan ku guda jirno waxaa isticmaali doonaa Visual Studio Code isticmaali doonaa. Insha Allah course-ka videoga intaasuu noogu egyahay. Tutorialiska course-ka inta ayuu inooga sii bilaaban doonaa. Hadda micnaha inaa fahanteen ayaa filaya HTML iyo HTML5 waxay yihiin. Sidoo kale historyga HTML aa wax badan ka fahanteen. Saaxiibayaal course-kan waa bilaash, course bilaash waaye oo si bilaash aad ku qaadan doontaan. Kaliya adig waxaa nigala baahan yahay waxay tahay in channel-ka subscribe aad saartaan. So channel-ka markaa subscribe saarto oo aad like saarto anaga waxay inoo tahay dhiirigelin inoo tahay in bulsho badan ay naga faa'iideysanayso. Waxaana markaa aan samayn karnaa in micnaha bulshada wax badan oo faa'iido u leh so inaan soo gudbino. Marka waxaa idinka codsanaa kaliya inaad share gareysaan videogan koorsada HTML si ardayda faraha badan ee jaamacadaha dhigta ee raba in micnaha HTML ka bartaan ay ugu faa'iideystaan. Course-ka videogiisa ugu horeeyay waa kana soo marka videoyaalka soo socda insha Allah course-ka ayaa gudaha u gali doonaa. Waa mahadsantihiin. Waxaa idinkaga mahadcelinaa qaabka ay la socotaan. So marka saaxiibayaal inoo share gareeyo, like inoo saaro, subscribe inoo saaro. Saaxiibadaada u baahan aan lacagta haysan ee koorsooyinka aan gadi karinna gaarsii. So ardayda jaamacadaha dhigatana waxay u tahay faa'iido weyn oo so wixii jaamacadda ku soo adkaada ama practical ah inte ayay ka faa'iidi doonaan insha Allah. Videogan video ku xig intaan ku kulmi doono waxaa idinkaga tagayaa nabadgelyo.